qisada nebi aadan calayhi salaam marka aynu ka sheekaynayno waxa ay la micno tahay bilowga taariikhda insaanka waa aabbaha dadka iyo sidoo kale qofkii ugu horreeyey ee alle u doortay inuu noqdo halka ay ka bilaabanayso tafiidta aadamaha durriyaddiisa wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ka fadilay noolaha kale oo idil haddaba sidee loo abuuray aadam sidee looga soo saaray jannada sideese u dhacay dilkii ugu horreeyey ee bini'aadamku isku geysto ilaahay markii uu doonay inuu abuuro aadam waxa uu malaa'igta u sheegay doonistiisa ah inuu dhulka u yeedho khaliif iyo kuwa dhaxla malaa'igta ayaa rabbigooda ku yidhi rabbiyow ma waxaad yeelaysaa kuwa dhulka iyo arlada fasahaadiya oo dhiigga daadiya malaa'igta oo hadalkooda sii wata ayaa alle ku yidhi subxaanahu wa tacaala annagu waan kuu tasbiixsannaa waana ku caabudnaa laakiin alle subxaanahu wa tacaala ayaa u sheegay malaa'igtiisii u sheegay inuu og yahay wax aysan ogayn alle ayaa amray malaa'igta mid ka mida inuu dhulka u dego kana soo qaado ciiddaasi oo ka kooban midabyo iyo noocyo kala duwan intaasi kadibna waxaa ciiddii lagu daray biyo waxayna noqotay dhoobo sidaasi ayay muddo ilaahay tirsigeeda og yahay ayay ahayd muddo kadibna wuxuu allah subxaanahu wa tacaala qadaray inuu ruuxda ku afuufo nebi aadan calayhi salaam waxay naftu ka gashay madaxa iyadoo ay ruuxdu hoos u socoto markii ay ruuxdu sanka maraysay ayuu aadan hindhisay malaa'igtii oo agtiisa joogtayna waxay ku dhaheen nebi aadan alle u mahadceli wuxuuna yidhi aadam alle ayaa mahad iska leh allahna wuxuu ugu jawaabay allaha ha kuu naxariisto ruuxdii markii ay sii gaartay caloosha isla markiiba wuxuu aadam doonay inuu qabsado oo soo goosto midhaha jannada iyadoo aysan ruuxdii wada gaarin jidhkiisa oo dhan sidaasi awgeed ayuu ilaahay u leeyahay dadka waxaa laga abuuray degdeg markii nebi aadan calayhi salaam ruuxdii ay gaartay jidhkiisa oo dhan waxa uu alle amray inuu u taga malaa'igta oo uu salaamo wuxuuna ku yidhi nebi aadan malaa'igtii assalaamu calaykum malaa'igtiina way ka qaadeen salaantii iyaga oo leh wa calaykum assalaam waxa uu alle ku yidhi nebi aadam taasi waa salaanta adiga iyo ubadkaaga sida ku soo aroortay suuradda 17aad ee suuradda 37 ee qur-aanka kariimka ah alle subxaanahu wa tacaala ayaa malaa'igta u sheegay inuu doonay inuu abuuro bashar malaa'igtana waxa uu faray markuu doono inuu nafta geliyo basharkaasi inay u sujuudaan kadib malaa'igtii dhammaantood way sujuudeen marka laga reebay ibliis oo isagu aan malag ahayn laakiin ahaa jin eebbe sarraysiiyey sharafna u yeelay ibliis muusan sujuudin alla subxaanahu wa tacaala ayaa weydiiyey ibliis sababta uu u sujuudi waayey ibliis nacladi korkiisa ha ahaatee ayaa ku jawaabay jawaab aad u xaqiran ibliis ayaa yidhi ma waxaan u sujuudaa noole aad allow ka samaysay dhoobo aniga ayaa ka khayr badan oo waxaad iga samaysay naarta ibliis ayaa ahaa mid aad u kibray islana weynaaday wuxuuna galay dembigii ugu horreeyey ee lagu sameeyo samada laguna caasiyo amarka alle subxaanahu wa tacaala alle ayaa u jawaabay ibliis wuxuuna ku yidhi ka bax samada waxaadna tahay dayro nacaladna dushaada ha ahaato iyo caro naxariistaydana agtaada way ka fog tahay ilaa iyo maalinka qiyaamaha allah subxaanahu wa tacaala waxa uu samada ka eryey iyo naxariistiisiiba ibliis kadib markii alle fogeeyey ibliis ma uusan dalban cafis iyo naxariistoonna mana uuna toobad keenin ee waxaa la sii weynaatay xumaantii iyo xasadkii naftiisa ka buuxay waxaana uu yidhi ibliis allow waxaad inoolaysaa ilaa inta qiyaamuhu ka dhacayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka aqbalay weydiintiisii ibliis alle ayaa ku yidhi adigu waxaad ka mid tahay kuwa dib loo dhigay ibliisna wuxuu ballan qaaday inuu luminayo awlaadda aadan ilaa qiyaamaha laga gaarayo oo ay dhammaanayso nolosha dunidu alle subxaanahu wa tacaalana wuxuu ballan qaaday ibliis iyo ciddii raacdaba inuu ka buuxin doono cadaabta kuwa toobad la yimaadana loo dembi dhaafi doono oo u soo noqdaan xagga rabbigooda nebi aadan calayhi salaam waxa uu ilaahay dejiyey jannada waxa uu cunayay midhaheeda waxa uuna cabbayey biyaheeda sida ku soo aroortay aayadda 118aad ee suuratuldaaha alle subxaanahu wa tacaala jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid kuma baahanaysid kumana dharla'aan doontid si uu ilaahay ugu siyaadiyo nimcada alle ayaa qadaray nebiyullaahi aadam calayhi salaam u abuuro lamaane oo ku wehelisa nimcada rabbi nebi aadan calayhi salaam oo hurda ayaa feertiisa bidix ilaahay ka abuuray xaawa oo ah
hooyada basharka. Markuu soo toosay ayuu hareertiisa ku arkay Xaawa. Nebi aadan calayhi salaam waxa uu weydiiyey Xaawa qofka ay tahay. Waxay ku tiri, waa ruux dumar ah, waxaana ay abuuray Ilaahay si aan kula noolaado oo nolosha kula qaybsado iyo nimcada Rabbi. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa deegaan uga dhigay jannada udugga leh. waxaana ku yiri sidaa doontaan ugu noolaada ku raaxaysta nimcadeeda, balse waxaa laga mamnuucay hal geed oo ka mida geedaha jannada inaysan cunin. Sidoo kale waxaa la faray inay iska ilaaliyaan Ibliis oo cadow u ah. Halkaasi ayay jannada muddo baraaro ugu noolaayeen. Ibliis ayaa u qalab qaatay qorshihiisii ugu horreeyey ee Aadam iyo Xaawa uu ku samayn lahaa. Wuxuu Aadam u sheegay inuu cuno geedkii la amray inay ka dheeraadaan si uu u noqdo malag. Kuma uusan dhihin caasi amarka Alle, balse si xeeladaysan ayuu u yiri, Ilaahay wuxuu idinkaga mamnuucay geedkan inaydaan noqon malaa'ig. Waxaad cuntaan geedkan keliya, haddii aad samaysaanna weligiin ma dhibanaysaan, jannadana waad ku waaraysaan. Nebi aadan calayhi salaam ma rumaysan hadalka Ibliis oo wuxuu xusuusnaa cadaawaddiisa. Laakiin Ibliis wuxuu mar kale adeegsaday qaab kale oo ah inuu u dhaarto Nebi Aadam kuna dhaarta magaca Ilaahay. Nebi aadan calayhi salaam ayaa markii Ibliis magaca Ilaahay ku dhaartay rumaystay warkii Ibliis. Kadibna waxay cuneen geedkii laga mamnuucay inay u dhowaadaan. Nebi aadan calayhi salaam isma lahayn noole Ilaahay abuuray ayaa si been ah ugu dhaaranaya magaca Alle. Waxa uu ilaaway ballantii isaga iyo Rabbigii dhex taallay, wuxuuna rumaystay cadowgiisii Ibliis. Markii ay geedkii Aadam iyo Xaawa dhadhamiyeen ayaa waxaa u muuqatay cawradoodii, wayna kala yaaceen, waxayna isku dabooleen caleentii dhirta jannada. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu la hadlay Nebi aadan calayhi salaam, wuxuuna ku yiri, miyaanan idinka mamnuucin geedkan oo aanan idinkaga digin shaydaanka Ibliis oo aanan idin dhihin waa cadowgiinna? Nebi aadan calayhi salaam iyo Xaawaba way ka shallaayeen dembigii ay galeen, waxayna baryeen Ilaahay inuu u dambi dhaafo. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ka aqbalay ducadoodii waana u dambi dhaafay. Laakiin waxa uu qadaray in Xaawo iyo Aadam calayhi salaam ay ka baxaan jannada una degtaan dhulka, halkaasina ay ku noolaadaan nolol ay la socoto xisaab. Waxayna beddelkeeda waayeen jannadii oo ahayd meel aan lahayn oon iyo caajis iyo gaajo, dhaxan iyo kulayl, culays iyo murugo toonna. Waxaana la keenay duni intaasi ka badan ku sifaysan. Alla subxaanahu wa tacaala waxa uu Aadam ku karaameeyey inuu noqdo nebigii ugu horreeyey si uu awlaadiisa u faro cabudaadda Alle oo keliya iyo la dagaalanka nafta iyo shaydaanka. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inay uba dhalaan, kuwaasi oo noqon doona kuwii tegi lahaa dhulka, camiri doonana. Sida uu qoray Ibnu Kathiir, Aadan iyo Xaawa waxay isku dhaleen 40 carruur ah, 20 ay wiilal yihiin, halka 20na ay gabdha yihiin. Waxayna laba kasta ahaayeen mataano, wiil iyo gabarba isku mataansan yihiin. Labada mataanaha ahna isma guursan karin, laakiin wiilku wuxuu guursan karayay gabar da'da ku xigta ah oo aan ku mataan ahayn. Xigmadda Ilaahay ayaa ahayd inay bataan faraca Aadan. Waxaa dhacday in khilaaf dhex maray laba wiil oo ka mid ah wiilashii Nebi aadan calayhi salaam oo lagu kala magacaabi jiray Qaabiil iyo Haabiil. Qaabiil ayaa diiday gabadha walaashiis ee mataanta la ah in loo guuriyo Haabiil, ilaa Qaabiil uu gaaray inuu dilo walaalkii Haabiil, sababna u noqdo inuu noqdo qofkii ugu horreeyey ee dhasha Nebi aadan ah ee adduunka dushiisa qof ku dila. Xalqadan xalqada ku xigta ayaynu ku la fikiri doonaa dhacdadii dhex martay Qaabiil iyo Haabiil.